السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي wanaagsan khiyaartana daawanaysa idilkiinba meel kasto aad joogtaan. Ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyada aan idinku talagalnay maanta oo Axad ah. Barnaamijkan waa kii labaad maanta aan idin soo gudbinayno. Taariikhdu waa 26 bisha May sanadka 2024. Barnaamijkeena waxaan idinku soo gudbin doonaa qodobo kala duwan oo aanu isleenahay waa wararkii ugu waaweynaa ee dhacay saacadihii la soo dhaafay. Haddaba muqaawamada Falastiiniyiinta ayaa waxay bartilmaameedsadeen maanta dhowr magaalo oo ay ugu weyn tahay caasimadda Israa'iil ee Tel Aviv iyagoo halkaa gantaalo roobka uga dhigay. Haddaba meelaha la duqeeyay waxaa ka mid ah oo dhibaato ay soo gaartay oo shaqadii ay joogsatay saacado airportka la yiraahdo Ben Gurion iyo xeebaha Tel Aviv ee Israa'iil oo iyana maanta oo Axad ahay dadku ay ku tamashlaynayeen ay halkaa ku kala carareen. marka hore waxaan idin tusinayaa xeebta waxa ka dhacay iyo dadkii ku sugnaa xeebta oo kabtay maaragtay ka dhacayso. سؤالي لك ما الخسائر بعدما أعلنته كتائب القسام فيما يخص أسر الجنود وإيقاع قوة في كمين وإطلاق الصواريخ waxaa sidoo kale meelaha sida la yaab kale looga soo warramay in ay ka dhaceen dadku cabsi fara badan iyo walaahow fara badan ay dareemeen ka mid ah magaalada gudaheeda iyo waliba airportka oo magaalada dhowr iyo 20 kilomitir u jira sida la sheegay oo iyana saacado shaqadii joojiyay oo dadkii musaafirka ahaa ay kala cararayaan. dhammaan marka arrimahan waxay ku soo beegmayaan iyadoo maanta dagaalka uu socdo maalinkii 233 oo weli muqaawamadu ay awood u leedahay inay mar kaliya duqayd la dhacdo ilaa 20 magaalo oo ka mid ah gudaha Israa'iil oo ay caasimadda ugu weyn tahay Tel Aviv. haddaba wixii laga qoray sheekooyinkaas ayaanu barnaamijka qayb ka mid ah idinku maqashiin doonaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa Israa'iil hay-adeeda wararka u faafisa ayaa waxay leedahay saacadaha soo socda ayaa la filayaa guutada Jafacaati oo ka mid ahayd 4 guuto oo weerar ku haya Rafax in halkaa laga qaado oo laga saaro. haddaba sababta looga saarayo halkaa maxay tahay? ma u hoggaansamida maxkamadii ay diideen ma u hoggaansamayna ay dhaheen warkeediya mise alyaasiinka iyo dhibaatada halkaa ka jirta ayaa laga cararayaa? General Faiz Ad-Duweri oo dib u soo laabtay oo Al Jazeera maanta ay ku faraxsanayd inuu studio-ga ka taxliiliyo oo uu soo caafimaaday ayaanu waxa uu ka yiri arrimaha idin la socodsiin doonaa. waxaa soo kale barnaamijkan idinku soo gudbin doonaa wararkii ugu dambeeyay Al-Qassam ay soo saartay taangiye ay gubeen askar ay laayeen dagaalo weli ka socda Jabaaliya iyo Rafax iyo qaybta kale oo aanu ku faahfaahin doono maxaa ilaa hadda laga yiri hadalkii xalay saqdhexe uu soo diray Abu Ubayda. Safari Remit waxay ka caawinaysaa inaad reerkaaga iyo saaxiibada ku nool dalal dhowr ah aad gaarsiisid wixii aad ugu tala gashay. ilaa iminka wadamada ay xawaalada kugu diri karto waxaa ka mid ah Kenya, Soomaaliya, Uganda, Djibouti, Ethiopia, Sudan, South Sudan, Tanzania iyo Turkey. qiimahana aad ayuu u jaban yahay marka loo eego shirkadaha kale ee ka shaqeeya xawaalada. xawaaladan waa online. Internet Plus waa adeeg ay macaamiishu ka heli karaan internet fiber ah oo xawaarihiisu yahay 20 megabytes per second. ayna la socdaan rasiifar ay ku jiraan in ka badan 4,000 oo kanaal iyo 100 daqiiqado oo ah ku hadal bilaash ah. dhammaan bulshada waxaa lala socodsiinayaa gaar ahaan magaalada London in xarunta dhinaca caafimaadka French and Overseas Clinic ay ku taalo meel aan ka fogeyn stationka tareenka ee Baker Street ee bartamaha magaalada London. halkaa waxaa jooga dhaqaatiir kala duwan
oo kaa daaweynaya cudurro ay ka mid yihiin kuwa maqaarka kuwa carruurta kuwa haweenka iyo cudurrada guud dhakhaatiirta halkaa ka howlgashay howlwadanaduba waxay diyaar u yihiin inay wixii caafimaad ay kula qabtaan bangiga caalamiga ah ee IBS bangi oo aad mar walba uga barateen soo kordhinta adeegyo cusub oo casri ah waxa uu kuugu bishaareynayaa inaad si sahlan lacag ugu soo diri kartid eheladaada iyo asxaabtaada ku nool dalka adigoo isticmaalaya xawaaladda caalamiga ah ee Ria Money Transfer ka qayb qaado farxadda ehelkaaga iyo asxaabtaada oo si fudud u isticmaal Ria Money Transfer wixii faahfaahin boqolaanta kuugu dhow ee IBS bangi kulanti wanaagsan khiyaaray meel kastoo aad joogtaan ku soo dhawaada mar kale iyo mid ka mid ah barnaamijyadeena maanta waa barnaamijkii labaad maanta oo axadaan idiin soo gudbinayo haddaba qodobo muhiima noo soo socda iyo sheekooyin cajiib ah laakiin marka hore waxaan jeclahay arrin aad loo hadalhayo oo warbaahintu dad badan ay ku maadaysanayaan kuwa reer galbeedka hadday yihiin kuwa kale ee caalamka intiisa kale hadday yihiin waxaa aad loogu qoslayaa xilligan ninka la yidhaahdo Zelensky madaxweynaha Ukraine Putin waa imtixaan ninkii maalmahaasuu nagta ugu hayay oo lalahaa ruushku hore u sikaday oo sii socdaa halkaas u socdaa dhowr kilomitir socdeen intaas 200 iyo dhowr kilomitir ayaa laga qabsaday Zelensky waa khalkhalay waxay soo kale la ciyaareen sheeko kale oo cajiib ah waxay yiraahdeen ruushku wuxuu go'aansaday in laga takhaluso markaa waqtigii laga takhalusi lahaa Zelensky aan la gaaray waa la dilaa war waxa meesha waxay ku fureen dacaayad iyo dagaalkii dhulka iyo wareerkii qabsaday dhowr jeer oo ninkan ku celiyay wuxuu yiri war annaga Israa'iil aan la simo Israa'iil waxaana ku daldalaysaan jabhad yar la dagaalamayaan intaasoo huba u geynaysaa diyaaraduhu ma joogsadaan qarba la wadaa war annaga dawladii labaad ee adduunka ugu awoodda badnayd meesha noo taagan ee hubka nasiya ninkan soo cabaadaya wuu daal hadda marka sheekada lagu maadsanayo waxay tahay Switzerland waxay tiri waxaan qabanaynaa 15 bisha June ilaa 16 bisha June ay soo socota shirweyne caalami ah oo looga hadlayo nabadda Ukraine dagaalada iyo waxa kan ka socda lagu mana casuumayo Ruushka iyo Ukraine labadaba ma imaanayaan laakiin waxa imaanaya 160 wafdi oo dawladda ka socda imaanaya ruushda waa iska okay saw dhib male Putin hawshiisu iska wataa nikana marka wuxuu sameeyay video iska soo duubay nikan marka warkii uu soo diray ayaa wuxuu noqday mid lagu maadsado muxuu leeyahay nikan wuxuu leeyahay madaxweyne Biden waxaan ka codsanayaa inuu shirka ka qayb galo madaxweynaha Shiinahana waxaan ka codsanayaa inuu isna shirka ka qayb galo sheekadan dhibaatadan haysata bal in halka lagu soo gabagabeeyo marka waa u imaan doonaa tafaasiisha marka hore sida arintan wax looga qoray aanaydu soo wargeyska leeyahay Asharqul Awsat ayaa wuxuu leeyahay ninka la yiraahdo Zelensky madaxweynaha Ukraine wuxuu ugu baaqay madaxweynaha Mareykanka iyo madaxweynaha Shiinaha inay ka qayb galaan shirka nabadda ee la filayo inuu dhaco dhawaan haddaba madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa maanta oo axada waxa uu ugu baaqay dhigiisa Mareykanka Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping inay ka qayb galaan shir madaxeed looga hadlayo nabadda oo markaa wadankiisa nabadeeda looga hadlayo waxaana shirkaas oo qabanqaabinaya oo ka shaqeynaya wadanka Switzerland waxaa la qabanayaa bisha June ee nagu soo aadan haddaba Zelensky ayaa wuxuu soo dhigay video kooban oo kaga hadlayo madaxda caalamka waxaana si gaar ah ula hadlay Joe Biden iyo madaxweynaha Shiinaha Xi Jinping waxaana uu sheegay inay markaa iyagu ka shaqeeyaan shirkaas oo ay hogaamiyaan oo markaa hawl wanaagsan oo nabada ay ka soo saaraan waxaan ugu baaqayaa madaxda caalamka inay markaasi dadaal ku bixiyaan caalami ah sidii shirka loo tagi lahaa oo dhibaatadan haysata loo soo gabagabayn lahaa dadku marka in shir la qabto waa caadi wadan dhibaato haysata in shir nabadeed loo qabto wax dhiba kama taagna laakiin mushkiladda meesha taagan waxay tahay laba nin oo aan isjeclayn oo siyaasad ahaan iska soo horjeeda oo ruushka la ogyahay Shiinaha say isugu fiican yihiin
oo shiinuhu iyo ruushku ay saaxiib yihiin iyo maraykan oo Zelensky iyo Ukraine say isku yihiin la ogyahay iyo ruushka iyo maraykan say isu neceb yihiin arrin intay isugu yimaadaan arrintaa loo dhammaynaa dadku markuu way ku maadsanayaan way ku qoslinki waxay leeyahay waa wareeray wuu isku dhex yaacay maxaa ku dhacay war ninka Putin imtixaansana maalmaha ninka muxuu ku sameeyay marka maalmahan waxyaabaha la yaab kale ee laga qoray dagaalka Ukraine waxaa ka mid ah waxaa la leeyahay ruushka NATO waxay lahayd sanad kadib tabartiisa waa yaraaneen hubkan tirada badan iyo rasaasta iyo waxa ka weyn dhamaanayaan ruushka waa u fakaray inta ay warshadihiisu rasaasta ka soo saarayaan wuxuu ku xirtay jeegaxeer ayaa mar walba maraakiibu iska wadaa habeen walba maraakiibta ka socota waa yaabaysa isaga dhex socota Kuuriyada Waqooyi iyo Ruushka waxa markab socda oo ninkan uu wado oo hub saaran yahay waa la sii wadaa marka ninkan waa laga adkaa waa NATO gacan taagtay marka sheekada la yaab kale ayaa halka ka dhacday ninkii Zelensky waxa leeyahay xoogaa ninkii waa qafiifee waa qafiif oo isku dhex yaacay waayahay marka waxaan u soo laabanaynaa sheekada cajiibka ee maanta dhacday maanta dagaalku wuxuu marayaa 233 maalmood waa dagaalka Gaza ka socda waa 233 waa bishii 9aad lagu jiraa xisaab ahaan markii la fiiriyo 9 bilood 9 bilood maalinkii dagaalku bilowday ilaa maanta meeshii hawshu taagantay waxyaabaha mar walba dadku ay qiimeeyaan waxa kamid ah war maxaa isbedelay Israa'iil 9 bilood intaasoo huba intaasoo ciidana ay ku weysay meeshii way ku baabaaday maxay natiijo keentay natiijo ay keentay ma laha la leeyahay sababtoo ah maanta Tel Aviv waa lagu kala cararay waa caasimadeedii airportkii Tel Aviv saacado xirnaa sida wariyaha Al-Jazeera uu sheegayo Waliid Al-Umari uu leeyahay warbaahintooda qaylo diyaaradihii dadkii rakaabka waa la wareer sidoo kale maanta waxay ahayd axad inta badan axadda iyo xilligan samarka ama xagaaga oo kale waa kulayl marka dadku waxay tagaan xeebtii oo la dhooban yahay ayaa wiishkii ka dul yeeraa war ka cararay waa la soo yimid war annaga maya hadana ma yaa soo riday war nimankii reer Gaza ayaa soo weeraray gab dadkii oo kala cararaya kabtay maaragtay war intee ka baxa meel Allah xagee gala iyagoo leh aidi tuso oo badii laga kala cararay أسر الجنود وإيقاع قوة في كمين وإطلاق الصواريخ على تل أبيب وطبعا صافرات الإنذار دوت في تل أبيب ومحيط تل أبيب وهذه الصور أيضا لبعض الإسرائيليين وهم نسينادي waa loo diiday fiiri badda waa la weeraray airportka waa nimanka taagtiigooda fiiri gantaaladooda waxay ku weerarayaan way og yihiin maanta kale oo axada oo qorxi jirto inay dadku xeebaha dhoobanayaan oo qorxaysanayaan halkaas anagta laga gali waa la kala eriyo dadka airportkii waa halbowlihii isu socodka safarada asagiina weeraraa ku dhacay agagaarkiisa waxa qaylo ka yeeray wiishkii ay yeeray war kala cararay dadkii boorsooyinkoodii la orday gab waxa ka dhacaa meesha aydi tus مطار زي ما انتم شفتوا تركنا السيارات هاي لما نطلع على المطار marka sheekadu marka halkaas ayay maraysaa waa sheeko cajiiba waxa leeyahay muqaawamada Falastiin inay duqeeyaan Tel Aviv bishii Janaayo ugu dambeysay Janaayo sanadka cusub markuu bilaabanayay ayaa ugu dambeysay inay duqeeyaan waxa la islaa waa tabar dhigeen markii mar walba la yiraahdo nimanku waa tabar dhigeen ayayba soo kacsadaan waa yimaadeen markii dadku ay niyadaas dhistaan oo nimankii xoogaa waa la weeqay awoodooda la isiraado ayay imaanayaan war niman imtixaan waaye awal Casqalaan iyo Sedrud iyo magaalooyin ku dhow Gaza iyo hadda 85 kilomitir 60 kilomitir magaalooyina 20 magaalo lagu kala cararmaad
oo maaragtay wiishkaas uu qabsaday oo uu yeeray wiida lagu haya oo talaabiib ugu weyn tahay. marka sheekadaasu marka waxay ahayd sheeko cajiib ah. gantaalaha marka xaggee laga soo riday waxyaabaha moogtahay mar walba waxaa la qiimeeyaa duqayntan gaze ka timid keliya war maaha. awal waxay dhahayeen jabaaliya ayaa gantaalaha laga soo ridaa. sababta aan jabaaliya u weerarayno waxaan raadinaynaa gantaalahaas. haye maanta marka gantaalahan ilaa talaabiib ilaa 20 magaalo nagta looga dhigay xaggee ka yimaadeen? waa su-aal fiican moogtahay. ma jabaaliyadii ka yimaadeen ay gantaalaha ka raadinayeen? may maanta rafaxa laga soo kelkelay maanta. war nimanku imtixaansana oo gantaalahan rafax iyo jabaaliya iyo meeshii rabaa laga soo ridaa. sootii uu yidhi jenaraal abdiweeri hadda ka hor nimankan dhulka hoostiisay haystaan kuwaana koray joogaan. marka gantaalkan dhulkuu ku jiraa jabaaliya maanta laga ridaa kadib waa xaluulanaa asagoo khan yunis laga soo ridaya arkay. rafaxa laga rida maanta 12 gantaalan aa lagu riday. kaaga daran meesha yaab kale waxay tahay oo aan akhriyay oo la yaabo mar walba waxay tahay waxay yidhaahdaan gantaalihii la riday waa 12 kala bara la qabtee dheheen. waa la qaban karaa gantaalaha. waxaa jira gantaalaha looga hortagay Israa'iil gantaalo fiican oo way haysataa. haye haafkii kale ee ku da'ay meesha sida roobkii aawe waa la isweydiinaa mogtahay ma lahaayo. kadib maxaa soo baxay hal qofaa wuxuu ku dhaawacmay magaalada talaabiib ayuu ku dhaawacmay xaafad ka tirsan. waxaa gaaray firir. war alaabtii kale xaggee ku degtay? yaa arkay? xaggee aadeen? looma ogola xataa saxaafadda. booliiska eriyada wax ku dhacaan dhegdheg waa la xiraa. saxaafad war ma jiro. waxay ku ballameen waayo goorba. waxaa leeyahay jenaraal xaatim alfallaaxi wuxuu yidhi markay wax dhacaan haafaa la qabtay ama labaa la qabtay intii kale way gudubtay wax khasaaraha ma geysanaa. waa magaalo dhan oo nimankaanu nagta ka geliyeen suuragal miya adinkaa idin weydiinaa. markaasuu wuxuu leeyahay ninkan fallaaxiga wax falanqeeya waxaas yaa loo sheegaa. waa iska dhegaysanaynaa udhaa nimankan waxay rabaana iska sheegaan laakiin meeshii waa la tegay waa laga adeegtay. intaas waa muhiimad. marka hawshaas iyaduna duqaymaha iyo wixii dhacay halkaasaan kaga gudbaynaa. waayahay sheeko kaleoo cajiibaa soo baxaysa oo la leeyahay saakay waxaa socda dagaal kululaa socda. ninkii abu cubayda ahaa xalay waa tii uu soo hadlay saq dhex oo barnaamij aroortii hore saaka aan ka sameeyey. abu cubayda wuxuu yidhi warkiisa ciidanaan gaadnay shirqoolaan u dhignay dabinay ku dhaceen nagtaa ka gelin. wax dhintay wax dhaawacmay iyo waxaan ka haysanay ayagoo nool asiira lidhaah waa wadan. ninkaas hadalkiisa markaa sidee u saameeyey israa'iil sidee u sameeyey? wariyaasha aljaziira ee ka soo warramaya ramallah waxay leeyihiin abu cubayda warkiisa aada looma buunbuunin jirin maalmihii lasoo dhaafay. markuu soo hadlo miidiyaha israa'iil si ay u daboolayeen. laakiin waxaan la yaabnay leeyihiin waxaan la yaabanahay hadalkan ugu dambeeyey meel walbuu saaray jaraa'idka telefishinada weliba hal xaba lagama dhimanaynin. sidiisaa loo turjumaa. afkooda cibrigay ku turjumayaan. marka waxaa miisaanka uu leeyahay hadalka macnaheedu wuxuu yahay 9 bilood kadib in muqaawamadu ay ku guulaysatay in la qabto. waxaa qosolka iga dhameeyey magaranaysaa ninka la yidhahdo jenaraal xaatim alfallaaxi ayaa qosolka iga dhameeyey. waa ninka wax falanqeeya. wuxuu leeyahay waxaan la yaabay kulaha waxaan la yaabanahay askar u baxday dad ka xiran inay soo furtaan kulaha. ujeedadooda waxay noo sheegeen uu yidhi dadka naga xiran xoog ka soo furanayna ay dhahay kulaha. marka hadafka ugu weyn number 1 kaasuu ahay. askartii u baxday dad laga haysto inay soo furtaan oo 9 bilood shaqadaas ku jiray
ayaa 9 bilood kadib waxaa la yidhi dadaa furataan iska dhaafe kaalaya adinka kaalaya ayagaa inta kuleetiga lasoo qabtay kulaha sanduuqii lagu riday kuwii kale ku jireen niyadda aaway kulaha marka kuwan kale ee dagaalama niyaddooda aaw aydi baqashiyo General Fallaaxi waa imtixaan nin caadi ma يمكن أن تتكلم عنها القسام في مرحلة أخرى. نحن نتكلم عن الضغط العسكري الذي جاء به وزير الدفاع ورئيس الوزراء نتنياهو، وقالوا أن الضغط العسكري سيؤدي إلى تخليص الأسرى، وها هو يخلص الأسرى وإذا به يقع في الأسر. يعني هذه القضية أنا أعتقد بأن qodobkaas isaguna halkaas ka ugu gudbaynaa waxyaabaha kale ee xiisaha leh ee la diiwaan geliyay saacadii la soo dhaafay waxa kamid ah hay-adda wararka u faafisa Israa'iil ayaa waxay tiri ciidamada Israa'iil qayb kamida waa laga saarayaa Rafah oo fiirsada meeshan waxyaabo la yaab la jira oo Rafah xagee way dhinacay ka baxayaan macbar Rafah macnaha xuduudkii Masar ee meesha baabuurta soo gudbi jirtay ay gooyeen guutadii fadhisaa la qaadaa meesha laga leexinaa meel kale la geenaa marka dadku wax taxliiliya marka siyaabo kala duwan ay uga hadlayaan qaar waxay yiraahdeen maadaama maxkamadda caalamiga Rafah dagaalkeeda jooji ay tiri xuduudana furtiri ayay Israa'iil iska ogolaatay ay samaysay dadaas saas ku dooday oo qaba meeshan dooda dhacaysa dadkaasu marka dadka ka soo horjeeda hadalkooda wuxuu ku radinayaan xilin Israa'iil si official dawladda inta qoraal u soo saartay waxay tiri wax kasta oo ka soo baxa maxkamadan ma aaminsanin sidee marka warka maxkamadda u yeelay suuragal ma ee marka maxay ula baxday qolada marka wuxuu ku doodayaan waxay ula baxday waxa meesha ka jira nagta laga galiyeen asxaan looma sameeynin sidii madfac iyo hoobiyo loogu waday kuwii xuduudda fadhiyay Masar soo qaylis waxay tiri war meesha nooga leexdo annaga baashi aan ka baqayna lafeena u baqaynaa heshiiskii Camp Davidna dhibaatay ku tahay 1939 Masar iyo Israa'iil kala saxiixdeen marka hawsha nimayo meeshan xogaa si naga dhah afar guuta marka ku jirta dagaalamaysa Rafah afar guuto oo Israa'iil oo hubkooda u dhan yahay oo cirka laga saacidayo oo badda laga saacidayo ku jira waxna waa qaadi waay marka saddex guuto ayaa lagu reebaa leeri hal guuto la jafacaati ayaa laga qaadaa meesha laga wareejinaa marka waxa leeyahay dagaalkii kululaaday si fiican la isu garaacay nagta la iska geliyay marka sheekada marka General Faiz Adweri wuxuu ku maqnaa Urdun oo ku maqnaa nimankan anigu wax taxliiliya jasiira ay keento waxba ma qariyaan niman generaala oo halisa oo wax bartay waay oo dagaalka waxay ka hadlaan siday taa u sheega waxabsanayaan ay Adweri marka waayada waa naga maqnaa waxa naloo keenay nin asaga ka daran oo leeyahay Fallaaxi oo Ciraaqi ah oo xaarisul jamhuuriyadda Ciraaq ku jiray Saddam ciidankiisii ragii maamulay kamid ah oo ka darayaan ninkan marka maanta xalay waxaan aragnay studio iyo waxa ku soo laabtay General Faiz Adweri marka aad loo jecel yahay xalil ya Adweri carabtoo dhan waa waagi dagaalku bilowgiisii way waxay dhahayeen wixii la isku qabtaba macnaha laba qof aad doodaysa macnaha meel farisa way doodayaan arina isku qabsanayaan oo arintan sax waa saxna markaas weera xalil ya Adweri yow kaalay arintan maartay taxliil ku sameeyay na kala saar amal marka Adweri uu qabsaday marka aada marka dad badan ugu xiran yihiin marka Adweri oo soo laabtay ayaa marka la wareysanay arintan marka waxa laga wareystay ciidamadeena Rafahan kala baxayna ka warraanay studio uu jooga markan sheekadu waa soo kulaatay Aljazeera generaalada dhan waa soo kaysatay marka generaal kasta meesha la keenaa dagaalka sidee taa loo falaqeena dada marka waxay qabaan waxay leeyihiin jasiiro ujeedada ka leedahay niman Israa'iiliyiin hadda ka hor aan dhageystay waxay yiraahdeen nimankan generaalada oo jasiira meesha ku keenayso
ujeeday ka leedahay ujeedada maxay tahay generaalku wuxuu qiimeynaa dagaalka haddii halkan ay soo weeraraan waxaa dhici karta in dhabar jibin ay muqaawamadu ku timaado marka muqaawamadu marka taagtiga ciyaari doonta halkaa way ka bixi doontaa marka waxay leeyihiin nimankan dagaalka ayaga hogaaminaya muqaawamada waxay siinayaan qishka dagaalka qariidadii meesha usoo dhigaya waxay leeyihiin Israa'iil afarta jihe ka socota haddii labadan jiho muqaawamadu aysan hor istaagin waxa u suuragelaysa inay meesha istiraatiijiga la wareegaan halkaana marka ujeedadooda ay ku gaaraan jaab baaqi waa loo sameeyay waa macna fiiri meesha waa la iskaarteera marka ninkii la wareysana marka Adoweeri aan waxaan idin maqashay wuxuu leeyahay nimankan maxkamada saana waxaan saar ma aaminsano leeyahay haye nimankan rafaxa lagu kululeeyay waa carreen لاتفاقية كامب ديفيد في عام 1979 وبالمقابل الآن ما يجري في فيلادلفيا ما يجري من عمليات تهجير تقريبا 0.8 مليون واحتمالية أن يكون هناك ردود فعل ميدانية قاسية كما يجري في محيط المطار داوديال waxaan markan idin dul marayaa dagaalkii waa socdaa Jabaaliya nagta la isku hayaa nin sargaal saraa oo aabihiis wasiirka deegaameynta ahaa Israa'iil ayaa isaguna dadkii la dilay kamida saacadii la soo dhaaf sarkaal ciidamada ayuu ahaa waxa lagu dilay Jabaaliya dagaal ka dhacay ilaa hadda tirada saxda ah ciidanka Israa'iil ma aysan sheegin lagu laayay saacadii la soo dhaafay maalmihii la soo dhaafay Jabaaliya marka hawsha halkaas maray wixii warar soo kordha barnaamijyada dambe ay kula socodsiin doonaan ku xirnaada barnaamijkayga si aad u heshaan xaqiiqda dhabta ah haddaba comments iyo fariimo noogu soo qora qaybta fariimaha sidaad u aragtaan mowduucyada is leedihiin aragtidiina iyo fikirkiina waa ka dhiiban kartaan haddaba barnaamijka like garay oo share garay Facebook iyo YouTube midkood haddaad nagala socoto sidoo kale haddaad nagu cusub tahay subscribe ha loobi YouTube-ka Facebook-ana follow garay si mar walba barnaamijyada aad u hesho saacada kadib barnaamijkaygii saddexaad ayaa noo ballana inta aan mar kale kulmayno haddii alla idmo nabadgelyo